dil aad u naxtin iyo ama kaag badan ayaa ka dhacay magaalada Oslo ee caasimadda dalka Norway ka oo ay geysatay gabar Soomaaliyeed kuna dishay wiil walaalkeed ahaa oo ahaa da'da ka yar gabadhaasi waxayna booliisku sheegeen in gabadhan iyadu qudheedu soo wacday markii ay falkan dilka ah fulisay waxa ayna booliiska u sheegtay in ay halkani ku dishay wiil walaalkeed ah oo uu yaalo guriga si degdeg ah ayay booliiska goobtii laga soo wacay ku gaareen waxayna halkaa ugu tageen wiilkan dhalinyarada ah oo aad u dhigbaxaya dhaawac culusna uu soo gaaray waxa ayna bahda caafimaadka gargaarka degdega ah isku dayeen in ay xaaladiisa maareeyaan oo ay u fidiyaan gargaar degdeg ah oo caafimaad hayeeshee umaysan suuragelin oo wiilka isla goobta ayuu ku dhintay booliiska ayaa ku waramaya in gabadhan Soomaaliyeed ay soo qabteen oo ay xabsiga u taxaabeen waxa ayna sheegtay taliyaha howlgallada booliiska ee goobta gaaray Monica Ingebretsen in ay gabadhaani soo qabteen oo ay xabsiga u taxaabeen su'aalo dhowrana ay weydiiyeen dhacdadan murugada iyo argagaxa leh ee ay gabadhan Soomaaliyeed ku dishay walaalkeed ka yaraa ayaa ka dhacday xaafadda Brinsdal ee magaalada Oslo ee caasimadda dalka Norway hay'adaha ammaanka ayaa ku soo waramaya in ay gabadhaani su'aalo badan ka weydiiyeen sida ay wax u dhaceen iyo qaabka ay u dishay walaalkeed waxa ayna sheegtay qareenka u doodaya gabadhan lagu soo oogay kiiska dilka ah oo ay kula kacday walaalkeed oo lagu magacaabo Cecilia Nestor in gabadhani su'aalo badan la weydiiyay waxna laga weydiiyay qaabka iyo sida ay u dishay walaalkeed waxa ayna intaa ku dartay inaysan doonayn hadda in ay faahfaahin dheeri ah ka bixiso hayeeshee waxa ay xustay in gabadhani ay raalli ku tahay in xabsiga lagu sii hayo waxna laga weydiiyo kiiskan oo maxkamad loo soo taago gabadhan ayay booliisku xaqiijiyeen in ay la dhalatay oo ay walaal dhaba la tahay wiilkan Soomaaliyeed ee ay gacanteeda ku dishay waxaana lagu soo waramayaa dariskii deganaa xaafadda uu dilkani ka dhacay ee Brinsdalen in ay ka muujiyeen walwal walaac iyo cabsi aad u fara badan falkani foosha xun ee ka dhacay xaafadooda booliiska ayaa ku waramayo in gabadhan xabsiga lagu sii hayn doono ilaa iyo kiiskeeda laga soo gabagabeynayo oo maxkamadda loo soo taagi doono gabadhan ayaa iyada qudheedu wacatay markii ay falkan dilka ah geysatay booliiska waxayna markii ay yimaadeen isu sheegtay in ay iyadu falkan geysatay macadda ilaa iyo hadda booliiskuna ma soo warin si taa lamidana qareenka u doodaya gabadhan ayaa iyaduna ka gaabsatay sababta ku kaliftay gabadhan in ay disho walaalkeed ka yar halka ay wararka kuwooda ugu doorkaroon idinkaga imaanayaan waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway waxaana idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdullaahi Shiine